haddana haweenka Soomaaliyeed markaan maqalnay Xasan Sheekh Maxamed inuu ku guuleystay madaxtinimada aadan u faraxnay oo soo dhaweynay sabab wax qabadkiisa aan ognahay iyo hogaamintiisa wanaagsan isoo haweenka ugu jilicsan yahay dalku markuu burburay madaxweyne Xasan Sheekh dalka kama bixin doono gabdhaha Soomaaliyeed dhanka kale haweenka qaranka ayaa ku amaanay Xasan Sheekh in uu wax badan u qabtay gabdhaha xilligii uu ahaa madaxweynaha sideedaad ee Soomaaliya iyaga oo niyadidiilo ka muujiyay inuu markan wax badan sii doono haweenka oo kamid ah lafdhabarta dawladnimada ayaa qabo tabashooyin badan waxaana la filayaa in dawladda cusub ay kor u qaado ka qaybgalka hay'adaha dawladda si qoondada ay mudan yihiin mudana madaxweyne ma rabno inaan hadal kaliya ka shaqeyno waxaan rabnaa si run ah oo practical ah inaan wadanka uga shaqeyno waan kula shaqeynaynaa waa ku garab taaganahay waxaad gashay iyo waxaad gudana waan ognahay haweenka Soomaaliyeed xarunta kali ah oo ay ku lahaayeen dalka Soomaaliya oo aan meesha isugu yimaadaan ay ku kulmaan iyadoo gacmo kale ku jirta adaa ka xureeyay oo haweenka gacantooda ku soo waxaan ognahay halka baabuur oo gabdhaha u dhaqdhaqaaqa oo haweenku markay xanuunsan yihiin lagu qaado isbitaalka lagu geeyo oo ambalaaska ah oo taksiga ah oo maaragtay rakaabka ah wax walba ah halka baabuur waxa uu siiyay oo u keenay haweenka Soomaaliyeed waa adiga ka gadaalna cidima soo damoon waxaan ognahay waxaad gashay waxaad guddo waxaan kula garab taaganahay taageero iyo garab istaag in dalkan aan u shaqeyno soo jeednana adaaba marqaati ka umadana waa ogtahay waana kula shaqeynaynaa haweenka hadii aan nahay sartaan waana jeclaanahay in aad timaadid oo aad nagu soo booqatid ilaa iyo biyatooniga ilaa iyo askariga albaabka taagan ilaa iyo lama soo koobi karo sida lagu faraxsan yahay sarta waxaan ka baqnaa daaqadaha inaan ka soo daadano markii la yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa soo baxay aqada iyo khalinka sidaasaan u haysanay 1 2 3 4 5 waa isku dhaxyaacna waa garan weyna farxad darteed inaan ku soo booqanano waa jecelnahay farxadda aan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed meel walba oo ay joogto ilaahay idinkiis waxaan ku rajaynaynaa guul farxad bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad in aad ku dhameysatid waqtigaaga meesha aad gaarsiin lahayd wadanka waa uu ku baahan yahay waad ogtahay insha Allah taala lagu tilmaami maayo maalinta dhalatay ilaa iyo maanta wadankaas aad ka shaqeynaysay aad u taagneed haweenka Soomaaliyeed markaan maqalnay Xasan Sheekh Maxamed inuu ku guuleystay madaxtinimada aadan u faraxnay oo soo dhaweynay sabab wax qabadkiisa aan ognahay iyo hogaamintiisa wanaagsan isoo haweenka ugu jilicsan yahay dalku markuu burburay madaxweyne Xasan Sheekh dalka kama bixin dal burburay waa la dhisaa laakiin maskaxda duntay lama dhiso wuxuu ahaa aabihii waxbarashada wuxuu ahaa aabihii maskaxda dhalinyarada dhisay wuxuu ahaa aabihii ilaa dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ilaa jaamacada furay wuxuu ahaa aabihii jiilka ummadda Soomaaliyeed maskaxdooda kor u soo qaaday ee soo dhisay ee heer soo gaarsiiyay wuxuu ahaa markuu madaxweynaha noqday aabihii aan ka helnay ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda gabdhaha heerka gaarsiiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta aan qof maanta nagu cusub oo san ahayn hooskan aan fadhina ninka furihiisa nagu wareejiyay oo ahaa Xasan Sheekh aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa baabuurka aan ku socono baabuurka ururka haweenka qaranka leeyahay furihiisa ninka nagu wareejiyay waaye aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waa nin og dadka maxay ahayd xaaladahooda iyo waxay ku sugan yihiin aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa maanta hawsha gacanta uu ku dhigay annagana waxa nagala rabaa inaan garab noqono oo la shaqeyno oo wax aliya wixii markaas meel walbo madaxweynuhu waa shaqsi wuxuu u baahan yahay garab wuxuu u baahan yahay gaashaan wuxuu u baahan yahay la shaqeeyo wuxuu u baahan yahay la taageero qofka wuxuu u baahan yahay dhiirigelin in la siiyo wax kasta uu yahay madaxweynuhu uu yahay hadii aan garabka laga qaban wax ma qaban kariyo qurba joogtooy hala soo taageero xafladii hala dhigo anigu magaaladii waa ka maqnaa waliba reer Birmingham London shaqo kuma li reer Birmingham madaxweynaha waa inaad u dhigtiin xafladii aan dhigi jirno kala mid ka daran waa inaad u dhigtiin anigu maanta waa idin ka maqanahay saas daraadeed dawladda waa soo dhaweynaynaa Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow farxadda meel dhakaana male mar walbo حفلتي ديارنتي فرحتي إن شاء الله بإذن الله وريبا رجيي أفرت السنة أفرت كلا أفرت يا كلا
insha allah gool iyo gobonimo rajeeye waa dalkii aad qaab walbaba uga soo shaqaysay waxaan ku leedahay ku soo dhawow haddana sidii hore iyo si kasii fiican baan kaaga rajaynayaa insha allah ilaahay idankiisa gabdhaha Soomaaliyeed waa kuu baahnaayeen waana kuu baahan yihiin waxayna ku leeyihiin dhammaantood dal iyo dabadba mudane madaxweyne soo dhawow waa ku soo dhaweynayaa waxqabadkaaga ay arkeen waxay ka barteen tusaale fiican bay ka barteen haddana tii iyo mid ka sii wanaagsan ayay ka rajaynayaan mudane madaxweyne soo dhawow waa ku soo dhaweynayaa una taagtaagsada goobjoog Muqdisho Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center xog balaaran ma naga siin kartaa haa moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon goys maaha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambeysay beledkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimaalow Center moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka electroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin Bimaalow